kulanti haboon saaxiibayaal dhammaantiinba qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah laba qodob oo xilligani laga bedelayo heshiiskii ay magaalada muqdisho 27kii May uga gaareen arrimaha doorashooyinka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dowladda wadanka Turkiga oo sheegtay inaysan ka laaban doonin qorshe ay Soomaaliya uga hirgelinayso xarun laga diro dayax gacmeedka hawada sare maamulka Puntland oo soo bandhigay markaba si sharci darro ku aruursanayay kheyraadka biyaha Soomaaliya oo ay soo qabteen ciidamada maamulkaasi maxkamadda sare ee Somaliland oo soo bandhigtay dacwadaha la xiriira doorashooyinkii isku sidkanaa ee dhawaan dhacay iyo waqtiga ay gudagalayso iyo shaqaalihii ugu badnaa ee u howlgalayay maamulka gobolka Banaadir oo mushaharaadkii laga joojiyay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilownay saaxiibayaal xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa qorsheynaya inay wax ka bedel ku sameeyaan heshiiskii 27kii bishii May ee aynu soo dhaafnay ay magaalada Muqdisho uga gaareen arrimaha doorashooyinka ee 2021 ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa isku afgartay in la bedelo laba qodob oo ku jiray heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka kuwaasi oo loo arkay inay caqabad ku noqon karaan dadajinta waxyaabihii lagu heshiiyay 27ka bishii May ee aynu soo dhaafnay xilligaasi oo la isku raacay in waqti kooban lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka wadanka si loo bedelo labadaasi qodob madaxda shanta maamul goboleed ee xubnaha ka dowladda iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa mar kale ku shiraya magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka si ay iskaga wareysaan waxyaabihii qabsoomay muddadii la soo dhaafay ee ka dambeysay heshiiskaasi iyo qodobada ay tahay haatan in wax ka bedel lagu sameeyo labada qodob ee la bedelayo waxaa ka mid ah in goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka in lagu soo koobo min hal magaalo oo ah caasimadaha dowlad goboleedyada kadib markii maamulada qaarkood ay ku adkaatay inay tagaan qaar ka mid ah deegaanada loo qorsheeyay inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka qorshahani waxaa si weyn dabada uga riixayay isla markaana ku taamayay in laga bedelo heshiiska madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland kuwaasi ay ku adag tahay inay tagaan magaalooyinka balad weyn iyo Garbahare oo lagu soo dooranayo kuraasta xildhibaano ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana la rajaynayaa in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya marka ay dib iskugu soo laabtaan magaalada Muqdisho in lagu dhawaaqo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka oo lagu soo koobay min hal magaalo isla markaana ka dhacaya caasimadaha dowlad goboleedyada wax ka bedelka kale ee lagu sameynayo heshiiskii 27kii bishii May magaalada Muqdisho lagu gaaray waxaa ka mid ah in xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay codsatay in la kordhiyo waqtiga loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha taasi oo heshiiskii hore laga dhigay muddo 60 cisho in ka badan kala baraya haatan laga soo gudbay muddadii 60 cisho ahayd ee loo qabtay in xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay ku soo gabagabayso doorashooyinka mana jiraan ilaa iyo imika wax muuqdo oo laga qabtay howlaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka ayaana sidaasi darteed dalbanaya in la dheereeyo waqtiga si uu fursad ugu helo qabashada doorashooyin xor iyo xalaal oo ka dhaca guud ahaan wadanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada oo wehelinayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa in maalinimada Sabtida ee soo aadan oo magaalada Muqdisho uga furmo shir looga arinsanayo waxyaabihii ka qabsoomay heshiiskii dhacay 27kii bishii aynu soo dhaafnay ee May
kaasi oo lagu gaaray teendhada Afisyoni. Ra'iisul Wasaare Roble iyo mas'uuliyiinta kale ayaa qalinka ku joogay 5 qodob oo heshiiskaasi muhiim u ahaa, kuwaasi oo kala ahaa tubta xalinta cabashada la xiriidha gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, hanaanka xalinta khilaafaadka gobolka Gado, xal u helidda gudiyada maamulka doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi, qoondada haweenka iyo in 60 cisho lagu soo gabagabeeyo doorashada. waxaana la wada og yahay in ilaa iyo imika uu hal qodob ka qabsoomay heshiiskaasi, waana qodobka xalinta cabashada la xidhiidha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kuwaasi oo ay soo gudbiyeen xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka, isla markaana laga saaray dhinacyadii ay cabashadu ka jirtay laguna soo bedelay kuwa nadiifa. madaxdu waxay garwaaqsan yihiin inaanay 60 cisho ku qabsoomi karin doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxtooyada, waxayna mar kale qorsheynayaan in ay jiheeyaan doorashooyinka dalka, isla markaana wax ka bedel lagu sameeyo qodobo ku jira heshiiskaasi. doorashada ayaana u muuqata mid aan wax weyn uga bedelnaan doonin tii ka dhacday wadanka sanadii 2016. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa la fahansan yahay inuu cadaadis ka haysto magaalada Garbaharey uusan weli ku kalsoonayn, iyadoo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guuleystay walaac ka muujinayo tagitaanka magaalada Badalay ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo bulshadu ay ka soo horjeedo. wax ka bedelka lagu samaynayo heshiiskaasi ayay imika isku raacsan yihiin sida wararku ay sheegayaan inta badan madaxda maamul goboleedyada, waxaana labadaasi qodob oo markii horeba la soo jeedshay ka hor yimid xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, hase yeeshee haatan door bidaysa. waxaana ay noqonaysaa in doorashooyinka baarlamaanku ay ka dhici doonaan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Jowhar, Dhuusamareeb iyo Garowe. haddii qasab laga dhigo inay 6daasi meelood doorashada ku qabtaan, iyagana waxay xaq u leeyihiin in ay yiraahdaan hala soo koobo deegaan doorashada iyadoo waqtiga yar ee harsan la eegayo, ayuu yiri sargaal ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. dadka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa sheegaya in arrintani laga yaabo inay mucaarado kala kulanto bulshada caalamka iyo dad iyo kale oo ku jira dhinacyada siyaasadda, kuwaasi oo aaminsanaa inaan wax laga bedelin heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho, kaasi oo la isku raacsanaa in lagu dul shaqeeyo. marxaladani ku gadaaman doorashada sanadkani ayaa ka dhigaysa inay Soomaaliya wajahayso doorashadii ugu adkayd tan iyo dib u yagleelidii dowladnimada muddo ku siban dhowr iyo 20 sano. waa hagaag saaxiibayaal, dowladda wadanka Turkiga ayaa sheegtay inaysan ka laaban doonin damaceeda la xiriira inay Soomaaliya ka hirgeliso xarun laga diro dayax-gacmeedyada hawada sare. dowladda Turkiga ayaa wada hadallo kula jirta 3 dal iyada oo raadinaysa in laga caawiyo qorshahani ay Soomaaliya uga dhisayso xarun laga diro dayax-gacmeedka, sida uu sheegay madaxa guud ee hay'adda hawada sare u qaabilsan dowladda Turkiga Serdar Yildirim, oo ah madaxa hay'adda hawada sare u qaabilsan Turkiga, ayaa hadalkani uu sheegay wakaaladda wararka Ruushka ee Sputnik isagoo ku sugan magaalada Petersburg oo lagu qabtay shirka caalamiga ah ee sahminta hawada sare. inkastoo uusan sheegin 3 dal ee dowladda Turkigu ay kala hadlayso, haddana hadaladiisi ayaa waxaa laga fahmay in dowladda Ruushka ay ka mid tahay kuwa haatan Ankara ay doonayso inay ka gacan siiso hirgelinta xarun weyn oo laga diri doono dayax-gacmeedka, isla markaana laga hirgelinayo wadanka Soomaaliya ee dhaca geeska qaaradda Afrika. waxaan Ruushka kala shaqayn karnaa dhinacyo. isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Ruushka ayuu sheegay in dowladda Ruushka ay kala shaqayn karaan dhinacyo badan oo ay ka mid tahay in xarun laga diro dayax-gacmeedyada
oo dowladda Turkigu ay leedahay ay ka wada shaqaynayaan imika labada dal. waxa uu kaloo sheegay inay xoojinayaan suurtagalnimada ah in Russia ay gacan ka geysato dhismaha xaruntani khibrad weyn ayayna u leedahay Moscow. arrintani ayuu sheegay madaxa hay'adda saadaasha hawada ee dalka Turkiga. sargaalkani hogaaminaya hay'adda dowladda Turkiga u qaabilsan saadaasha hawada ayaa sidoo kale sheegay in dowladiisu aysan ka laaban doonin damaca ay ku raadinayso inay Soomaaliya uga hirgeliso xarun laga diro dayax gacmeedka oo ay leedahay dowladda Ankara. waxa uu sheegay inay saaxiibadooda ka raadinayaan in laga caawiyo hirgelinta xaruntaasi iyadoo haatan la rumaysan yahay in dowladda Russia ay tahay midda ugu weyn ee gacanta ka geysanaysa in Turkigu uu hormariyo sahmintiisa dhinaca hawada sare. bishii Febraayo ayaa lagu waramay in Ankara ay ka fakarayso inay Soomaaliya ka dhisto saldhig laga diro dayax gacmeedyada oo ku kacaya lacag gaaraysa $1 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo qayb ka ahayd barnaamijka sahminta hawada sare ee dowladda Turkiga. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in Turkiga ay u qorsheysan tahay inuu tago dayaxa sare 2023 markaasi oo ku beegan 100 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskii jamhuuriyadda cusub ee Turkiga. Turkiga ayaa dhistay hay'ad u qaabilsan hawada sare bishii December 2018. 2020 waxay ku dhawaaqday inay hormarisay gantaal hawada sare loo diri doono kaasi oo ay samaysay shirkadda qandaraas ka qaadato oo lagu magacaabo Rotterdam. waxay sidoo kale qorsheynaysaa inay cirbixiyeenno u dirto saldhigga hawada sare ayna dirto satellite u gaara si ay u aasaasto nidaamka meelaynta caalamiga ah ee loo yaqaano GPS-ka. marka ay ku dhaqaaqdo tallaabadani dowladda Ankara waxay indhaha caalamka ku soo jeedin doontaa xiriirka dhow ee ka dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Soomaaliya maadaama Ankara saldhigga noocaasi oo kale ay ku aaminayso wadankani dhaca geeska qaaradda Afrika ee dib u soo kabanaya. waxaana sargaalkani uu sheegay in ku dhaqaaqida tallaabadaasi ay haatan tahay mid maraysa meel gabangaba iyadoo la dhisayo istaraatiijiyad weyn oo dhinaca hawada sare la xidhiidha, taasi oo ay markaasi dhaqaale iyo dadaalba ku bixinayso dowladda madaxweyne Erdogan. ciidamada badda ee maamulka Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay markab kalluumaysi oo si sharci darro uga jilaabanayay biyaha wadanka Soomaaliya sida saraakiisha ciidanka badda ee Puntland ay u sheegeen warbaahinta. ciidamada warbaahinta la wadaagay markabkani ayaa sheegay inay ka soo qabteen xeebta degmada Qandala gobolka Bari ee Soomaaliya kadib markii ay ka war heleen inuu halkaasi ka waday jiriif sharci darro ah oo ku jilaabanayay kheyraadka ku jira biyaha Soomaaliya. saraakiishii hogaaminaysay howlgalkani lagu soo qabtay markabkaasi ayaa sheegay in wax sharciya uusan wadan markabka, isla markaana hadda ay ku wareejiyeen taliska guud ee ciidanka badda Puntland. markabka loo soo bandhigay warbaahinta waxa uu ahaa markab weyn oo ka mid ah kuwa sida sharci darrada uga jilaabta biyaha wadanka Soomaaliya isagoo aan weliba wadan wax sharciya ama aqoonsi lagu garanayo halka laga leeyahay. markabka ayaa shaqaalihii saarnaa ayaa la keenay dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari si loogu sameeyo baaritaano dheeraad ah. sargaalka hogaaminaya ciidanka soo qabtay markabka ayaa sheegay inay howlgal uga baxeen dekedda Boosaaso ujeedkooduna uu ahaa soo qabashada markab si sharci darro uga kalluumaysanayay xeebta degmada Qandala saqday dhexe ee habeenimada, waxaana uu sheegay inay gacanta ku dhigeen markabka iyo raggii watabay wax iska caabinana aanay kala kulmin mana aysan wadan wax sharciya si sharci darro ayayna uga kalluumaysanayeen biyaha ayuu u sheegay xidigle Maxamed Axmed oo ah sargaalka hogaaminayay ciidanka gacanta ku soo dhigay markabkani sida sharci darrada uga jilaabanayay biyaha Soomaaliya.
sidoo kale sargaalkani waxa uu sheegay in ragga watay markabka la qabtay ay ahaayeen 10 nin isla markaana warbixinta markabka ay u gudbiyeen taliska guud ee ciidamada badda maamulka Puntland bishii Maarso ee sanadkani ayay ahayd markii ciidamada badda ee Puntland ay howlgal noocan oo kala ku soo qabteen 10 doonyood iyo shaqaalihii watay oo si sharci darro uga kaluumaysanayay biyaha Soomaaliya kuwaas oo laga lahaa wadanka Yemen boob caalamiya ayaa ku socda biyaha Soomaaliya oo xilligani aan lahayn ciidamo dhisan ama cid dul meermeeraysa oo ka hortagaysa kaluumaysiga iyo jilaabashada sharci darrada ah ee ka socota biyaha wadanka Soomaaliya iyadoo kuwa iskugu yeeray la dagaalanka burcadbadeeduna ay geeskooda ka boobayaan waxyaabaha dahan ee ku jira biyaha wadanka Soomaaliya waxaana la sheegay in maraakiibta shisheeyuhu ay si sharci darro malaayiin dollar sanad walba uga jilaabtaan biyaha wadanka Soomaaliya iyadoo xilligani Soomaaliya aysan awood buuxda u lahayn inay koontaroosho biyaheeda gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ayaa sheegay in 23 dacwadood oo la xiriira natiijooyinkii doorashooyinkii isku sidkanaa ee 31 May ka dhacay Somaliland ay mudaysay maxkamadda sare dhageysiga dacwadahooda fadhigii koobaad ee lagu dhageysanayana la gudagali doono iyadoo ay muddo dheer ka dhahayeen dacwadahaasi gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddiga cadaaladda ee Somaliland garyaqaan Aadam Xaaji Cali Axmed ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan cabashooyinka murashaxiintu u soo gudbiyeen maxkamadda sare waxaana uu sheegay in dacwadaha la mudeeyay 22 bisha 6 2021 isla markaana si rasmi ah ay u gudagali doonto maxkamadooda waxa uu kaloo sheegay in waqtigaasi hore loo mudeeyay wax yar dib uga dhaceen gudagalka dacwadahaasi ase yeeshee imika ay maxkamaddu ku howlan tahay wareyn gudoomiyuhu waxa uu warbixin kooban ka bixiyay ansixinta natiijada doorashada ee golayaasha deegaanka Somaliland oo soo dhamaatay taasi oo 2 toddobaad ee u dambeysay ay ansixiyeen maxkamadaha gobolada Somaliland maadaama iyagu ay awood u leeyihiin ansixinta iyo ka garnaqida dacwadaha ka yimaada golayaasha deegaanka sida uu dhigayo qodobka 153 farqada labaad ee xeerka LR 91/2020 gudoomiyuhu waxa uu ku amaanay gudoomiyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha gobolada sida wanaagsan ay u guuteen waajibkooda shaqo ee ay u hayeen Somaliland waxaana uu xusay kaalinta lixaad kale ay ka qaateen maxkamadaha gobolada Somaliland dejinta ansixinta natiijooyinka rasmiga ah iyo dhaarinta golayaasha deegaanka ee Somaliland isagoo dhinaca kalena u hambaliyeeyay mudanayaashii loo doortay 20 degmo doorasho iyo maayarada ku-xigeenadooda guud ahaan Somaliland geesta kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in khamiistii 17 bisha 6 2021 ay ku ekayd waqtiga la qabanayay cabashooyinka murashaxiinta golaha wakiilada kuwaasi oo ay tiradoodu dhammayd 25 cabasho oo 2 ka mid ay noqdeen halka 23 cabasho ee kale la gudbiyay guddiga doorashooyinka qaranka oo iyaguna 21 bisha 6 2021 ka soo jawaabay cabashadii ay murashaxiintu kaga cabanayeen waxaana uu sheegay in la mudeeyay waqtiga la dhageysanayo dacwadahaasi maruu gudoomiyuhu sharaxaad ka bixinaya cabashooyinka iyo sida ay kala yihiin xisbiyada qaranka iyo kuwa gobolada dalku ayuu tilmaamay in cabashadu ay tahay mid si guud uga timid xisbiyada isla markaana ay dib ka soo shaacin doonaan gudoomiye Aadan Xaaji Cali ayaa tilmaamay in dharaara kooban maxkamaddu ku soo afjari doonto dacwadaha la xiriira natiijooyinkii horudhaca ahaa ee golayaasha wakiilada Somaliland oo ay maxkamadda sare ee dastuuriga awood u leedahay sida uu dhigayo qodobka 152 farqadiisa koobaad ee xeerka LR 91/2020
ugu dambeyntii gudoomiyuhu waxa uu mahad celiyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi hay'adaha dastuuriga ah ee Somaliland dhammaantood guddiga doorashada qaranka wasaaradda arrimaha gudaha iyo asxaabta qaranka sida wanaagsan ay uga qayb qaateen qabsoomidda doorashooyinkii dhammayska tirnaa ee ka qabsoomay deegaanada Somaliland. ugu dambeyntiina xog ay heshay warbaahintu ayaa muujinaysa in inta badan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir aysan wali qaadan mushaarka bishii hore ee May iyadoo tan kale ee June ay haatan gabagaba tahay. maamulka gobolka Banaadir ayaa 15 bishan bilaabay bixinta mushaaraadka waxaana la siiyay qaybta arrimaha bulshada iyo gudoomiyaasha degmooyinka hase yeeshee waxaa dhiman in ka badan 3 meelood shaqaalaha gobolka oo wali sugaya mushaaraadkoodii. qaybaha dhiman ayaa kala ah qaybta amniga iyo siyaasadda, qaybta howlaha guud, qaybta maaliyadda iyo qaybaha kale ee hoostaga xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaas nabadee.